waxaynu xusilayn markaa ibnu qayim baynu ka soo qaadanaynaa qoraaladiisa oo baabkan aada uga hadla rawxaaniyaadka iyo akhlaaqiyaadka iyo suluuga qofka ilaa 100 faa'iido oo dikrigu leeyahay buu sheegay isagoo nusuusta un kala soo baxaya 100 faa'iido oo ay leedahay inaad ilaahay xustaa waxaa ka mid ah adikru yadru shaydaan shaydaanku kaa eriya mar hadduu qofku daakir yahay oo aanu qaafil ahayn nin ka dhacsan qof ka dhacsan aanu ahayn wuu iskaga caraabaya shaydaanku yurdi araxmaan ilaaha raxmaanka abuu raali geliyaa inuu ilaahay naga raali noqdona waa waxaynu u rooraynaba maxaad ka weyday inuu ilaahay kaa raali noqdo ciddii doontaabaa ku cadhootay faa'iidooyinka dikriga waxaa ka mid a yuziilu alhama waalgam waa labada adduunyada waalayba maanta murugo iyo ciil iyo cidhiidh iyo diiqad ayaa ilaahay kaaga dulqaadaa yajlibu albasda waasuruur farxad buu ku geliyaa yunawiru alwajh wejiguu ku iftiimiyaa yujlibu risq arsaaqadana wuu kuu soo jiidaa dikrigu kol haddaad ilaahay xusayso faa'iidooyinka waxaa ka mid a yuuriu maxabat allaahi lilcabd ilaahay baa kugu jeclaanaya addoonku ilaahay ugu jecel yahay waxa weeye ka ilaahay jecel jacaylkaaga waxaad ku gaadhaysaa inuu ilaahay ku jeclaado dee waaba tan lagu yidhiba ee halkan lagugu sheega waxaa la yidhaahdaa man axaba shay-an akara min dikri qofka shay jeclaadaa sheegiddiisu badiyaa ka islaan jeclaadaa ama gabadha nin jeclaataa markuu hadalku soo yaro wareegaba isagii unbuu carabka kaga dhacaya ka lacag jeclaadee businessmaanka ama ganacsadaha ahi wuxuu soo wareegaba alaabtii ka warran buu ku dambaynaya ka kursiguna wuxuu soo sheekeeyaba kambeynka halkeenu ka qaadnaabuu ku dambaynaya marka adiguna haddaad ilaahay jeceshahay dhinacun baad ka in yar marka hadalku socdoba dikri baad ku soo dhacaysa taasoo iskaba yarba dikriga faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah wuxuu keenaa inuu ilaahay adiga ku xuso bal adigaagan yara miskiinkae halkaagan iska jooga ifkan meeshan ku nool hadduu ilaahay kaa xuso fowqa alcarsh bal ka war man dakaranii fii nafsihi dakartuu fii nafsi waman dakaranii fii malain dakartuu fii malain khayri minhu xadiidkii saxiixa ah qofka si gaara i xusa anigu si gaaraan xusaya qofka jamac dhexdii igu xusana waxaan ku xusi doonaa buu ilaahay oon ku ammaani doonaa jamackiisa ka wanaagsan oo dee malaa'igta ah qalbiguu nooleeyaa dikrigu cidladu kaa biiya yuziilu lwaxsha dadku had iyo jeer istarasti baa haya iyo qulub caalamkan oo way iska diiqadaysan yihiinoo qofkuu kaa didayaaba haddaad saa u egto qof waliba wuxuu jecel inuu meel iskaga xidhnaado markaa qofku cidladu ka ba'aya oo xayaatadiisu takuunu xayaata almusta'nis yaxudu sayi'aat intan oo dhan nusuustaa laga wada qaadanaya dembigaa ilaahay kaaga dhaafaya qofka u anfacaa dikrigu xaaladdu markay adkaato qofku intuu daakir yahay ilaahay xusayo malaa'igtuna way soo degaysaa naxariistuna way soo degaysaa xadiidkii dheeraa baa ku garanaysaan malaa'igtii baa imanaysa naxariistii baa ku soo degaysa marka cilmigan aynu baranaynaana waa dikrigii waxyaabaa ilan dikri waxaa la yidhaha wax kastood ku dhawaaqayso ama aad qalbiga ka samaynayso ama aad xubnaha ka samaynayso ilaahay kaaga raaliya uu ku faray subxaana wa tacaala waxaad kaga raysataa xanta iyo beenta iyo nacnacda hadalka dee ilaa carabkan aamusi maayo ama wax khayr labuu haynayaa ama dhan kale u kacayaa iminka inaad tidhaahdo waan fadhiyayaa maanta o dhan maya tamar baa kugu jirta tamarta ama xagga dikrigii khayrkaad u jeedinaysa ama xaggii kale aynu u daldalmi jirnay ayaad u duwaysa maalinta qiyaamaha xasrada iyo murugadu kaa dulqaadaa dikrigu macnaheedu markaa waxa weeye qof kastoo meel fadhiista waa kii nebigu xusayey ummadda meel fadhiisateen ilaahayba xusin maalinta qiyaamaha way ka murugoodaan carshuraxmaanka harhkiisaa lagu helaa inaad ilaahay ilowdaabaad kaga baxsanaysa munaafiqnimadaa lagaga badbaadaa shayga la idhaahda in ilaahay la xuso waa cibaadooyinka u fudud dikrigu dee carabkubaad ka wadaysa hawl badanba kuguma leh shaydaan unbaa kaa hor jooga axaadiid badani siday tilmaamayso beeraha jannada waxaa lagu beeraa dikrigaa lagu beeraa laa xawla walaa quwata ilaa billaah sida kaasoo kale dikrigaasoo kale dikriga faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah colka shaydaanka ee kugu soo ururay wuu kaa kala firdhiyaa adduunyada wixii kaa kala firdhayna ilaahay wuu kugu soo ururiyaa
shukrigana waa waxyaabaha u weyn oo waa kan ilaahay isku cadfay faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a waxaad ku heshaa malaa'igtu inay kugu sallido intaad ilaahay xusayso subxaanahu wa tacaala dee aad bay u badan yihin caawo dhan haddaynu wadno kuwaayaalahaasaa ka mida faa'iidooyinka dikriga waxyaabaha ugu sii fiican waxaa ka mida ilaahay uu jecel yahay subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar qur-aanka akhrintiisa bukhaari waxa uu ku soo khatimay xadiidkii saxiixa ahaa uu nebigu xusayay calayhi الsalaatu wasalaam kelimataani khafiifataani calى lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ilى الraxmaani subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi alcadiim maxay ku yeeli way fudud laakiin ha fududaata ee carabka way ku fududahaye bal kaalay karba inteed maanta wardiday xalay inteed wardiday shalay inteed wardiday waad arkaysaa inuu wanaagsan yahay waad arkaysaa inuu sahlan yahay bal kaalay laakiin u bax ama fara ku tiri ama u fadhiiso ama tusbax u qaado waxaad doonaysaa tusbaxna waa lagu tirin karaa waa aaladu markuu dikrigu bato almuhim waxaynu markaa baraarujinaynaa waktigeenna dikriga aan qayb siino fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun ii mahadnaqo ha iga gaaloobina buu ilaahay ku leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay miyuu ina baryayaa inama baryaya laakiin wuu inoo danaynayaa danteennaasaa ku jirta waxaasoo faa'iide ah waxaynu ka heli lahayn aynu ku nasan lahayn qalbi madoobaadka kaga badbaadi lahayn dikriga allah ina waafajiyo wallahu aclam